أستانوا مضوها أقوانوا مضوها وآية أرجي أردتي أفكوية أرلية ظهروا مري فرشد أفكو ذي كبحشان الدونو سيدي آدمها كلو فهمان دمت البيت أوران نقالية هنتي أدو فرابضا ومدين للسومال كأرد المتكودي ما ذيك سدانو بديوة إلا وين وامحين كارتب نين إنكري أفكيسي أفكالات كدور بلي ما أقوانت مانتا ويتال نوين بان ما ساقو دافو يعني منك تالا سوى أهرمكالي نين أمدري سيديسي أكمر أيو هويجي أسبكي أوغي يدهبكي أبي سوتي أبوانيدي بهاي هالدوري أفكالات أقوانيو أركو بدلي كلا ما هكي أبكيني أركي أماني سيان معلمين تدوينات سوماليدا يوارين دود انتينا سمينار فرنمر هوري دولة إسلام الله واحد أنا نقول بلعبنا آيات القرآن بلا أخرج قاعد نجار وليد فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله. هذا دلالة كلمة يختص وقوه وحجعلها رجل غير كامل دليل ما يشكم بغلط حفريا بالمحمد حاشد عقارية سوى تقانا نسينا بدن ويلك دليل بدن كودنا بقى حساب دوك كقدر يعني ما قال كقدر كام مقالبة ما توحى النصيب يعني هنا إنه هذا حبرشدان مسلمين كانوا ما تقول شو كانوا حاشد حكروا لما يحلو كلا ضحية صدق كيلو محمد الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وكما هستين كسوق قبلك يعني ماذا أي نادي كسوق قبلك كسوق قبل الشباب هل كانوا أي نكرة هل ينو أفكارنا سوغان تيسة يقول حديثه هذا برتين شاعر مثلا بلوا شاعر مثل ما نقول سقطه هو يالي إلى هذا كامل وعلى شاعر معلم أديب دونيا إنه يسبر بالهارو فرفره سوغان سينا أنتو يرفع فرفره هذا لا يسكو حدنا حاجة أول حدنا عادي مكانك يسكايلو كقلّه لأن عادي قلبك هاي مكانك الكعكة وعيلو بل يرفع فرفره البخا خير تلو حيبونك وحلال دبنا ندرس وحده فهمنا waxa gudaheeda ku jira ayaan fahmno ayaa halka dukuibi waa approach ka duwan approach-ka suugaanta u barateen ee laga la isqabto waa approach analytic approach to our literature aan doonayo si analytic oo taxliili ah oo sida bini'aadamku dee adabka iyo literature-ka sidoo u barto inuu afka Soomaaliga uga hadlo uu gayaay inuu sida mar uu uga hadlo waxa idin sharafa in paali in amrudadii waxa isagoo si cilmi ah looga sheekaynayo suugaanta in amrudada ugu horeeyay ka mid noqonaysa baa idin sharafa idin kala waxa ka dhigaa jaamacadaha Hargeysa iyo Abuud baa ka dhigaa horena waxaan uga dhigi jiray la foole markay la foole ahayd Soomaali literature iminka Cabdilaahi gala warqadaha ilaasita ku yara qoslay oo waxaan uga baahanahay inuu xasuus waxay xasuusiyaa inta kala ka marka muddo dhigayso uga baahnid markii cabadaba uga baahnid waxa u baahantu waxay ku yara xasuusiyo dabeedna aad iska gasho ee u baahanaysa meela ka bilaabo baan garan lahay waayo waa baxru la saaxil lah suugaanta Soomaaligu waa bad alxeeb lahayn oo badu si muuqat markaas ay waxa garan lahay halka ka gasha waxa say xadidaya qoladan aanu isku aragnay Helsinki Stockholm aan isku aragnay baaltii dhaweyta macallimiinta ayaa in yar baan kala hadlay oo aan isleeyahay waa wax yar oo kooban intii u bay soo qoreen waxa intii ka hadal waxa islaha marka waxaan islaha iska gal laakiinse waxa ay soo qoreen intii aan Helsinki ka bahasha kaga hadlay Stockholm ayay gala hadleen
marka iyagaa wax ku waayay waxba igama gelin waayo hadday si kay sii day lahaayeen waxaa laga yaabaa macluumaad kale inay heli lahaayeen bari dhexdaasa waxaa la yidhaha marka la bilaabayo macallimiin baa bilaabaysa u badan macallimiinta waxaa la yidhaha warm up exercise baa la yidhahaa warm up exercise baa lagu bilaabaa oo intaa ilaa waxa gelin in la yaro diiro waxoogaa diirrimaana baa loo baahdaa warm up exercise-ka waxaa jira 3 xaraf oo af Soomaaligu ku dhamaan gebigeedaba ataxaddaa ninka ku dhameeyana oo taxadiba waxaan leeyahay soo xidho marka aniga maxkamada ay saaro 3 xaraf oo af Soomaaliga ka mid ah 3 xaraf oo xuruufta ka mid ah ayaan af Soomaaligu ku dhamaan haba yaraatee warm up haddaan ku bilaabo xarafka ma kuma dhamaado af Soomaali erey Soomaalidu ma ku dhamaadaan ma jiro m kuma dhamaado haddii afafka qalaad uu kaga yimaado erey ku dhamaada ma oo af Soomaaliga la islaaha geliya na buu isku bedelaa hadduu maaba ku dhamaado n buu isku bedelaa آدم بولغدا مريم بولغدا إسلام بولغدا إسلام بولغدا لا ديتلو إسلام بدر ليس ما إسلام تام مريم بعد قوليسا هبل آدم بعد قوليسا لما هيو الصوماليات أون كلهم هذا لما هيو وحسب بدلا immediately إن بيسب بدلا ما جرو erey Soomaaliyeed oo ka ku dhamaada ka Soomaaliga ku jiro haka faadinina bug hadaad aragto bug gaab isu bedelaa meesha ku dhamaado gaab isu bedelaya wax xuruufta isku makharijta ah ayaa la yiraahdaa marka linguistics la hadlayo xuruufta qaar baa la yiraahdaa waa isku makharij marka ereyga ugu makhraj dhow ayuu ku xidhmaa kaadu gaab isu bedeshaa bug hadduu kuug yahay hebel abahay waa kuug baad leedahay kuug buu ahaa abahay baad leedahay kuuga baad leedahay waaya xarafka t la yidhaaho ta af Soomaaligu kuma dhamaado waa la waayta weliga daba adigu isbaanbaan oo hashaada ka baan erey Soomaaliyeed oo ta ku dhamaado hadduu erey gaaleed oo kale oo ta ku dhamaado ku yimaadana da buu isu bedelaa ta iyo da baa isku dhooba xagga makhrajka 3 xaraf af Soomaaliga lagu lumay oo kuma dhamaado waxay waayiro korsaa qootaada weeye oo ko yani furi hilibka beer baa laga horeysiyaa beer baa lagu sii sugaa beerka weeye lagu sii sugaa waxa kale oo jirta qolaan Djibouti bari Soomaaliya Djibouti waxay ka hadlayaan oo isku dayeen runtii way isku dayeen halkan ay ka yimaadaan ereyga waxa la yiraahdaa af Ingiriisiga etymology of words oo waxa la raadiyaa ereyga ayaa la istiraacaa waa la istiraacaa etymology-ga oo marka luqada la dhiganayo raga luqada iyo linguistics aba istiraaca oo waxay ku istiraacaan ereygaas halkee buu ka soo jeedaa baynaha asalkiisa way isku dayeen inay bilaabaan anigu qaar baa waa ku sii daray markii dambe etymology waa qayb ka mid ah raadinta afka bahalka asalka ereyga matalan ereyga buuran waxaasi hadduu hebel buuray waxaasi buuran yahay wuxuu ka yimi buur buu ka yimi buur baa ayaa adjective marka loo bedelo buuran bay noqonaysaa marka wax buur leeg baad leedahay waxaasi wuu buuraya markaad leedahay asalkeedu waa buur weeye haddaad tidhaahdo waxaasi wuu badan yahay asalkiisu waa bad wuxuu ka yimi waa badan baa laodhanayaa markaa badda ayaa wax badan oo aan wax weyn oo la gaari markaa ereyga badan bad buu ka yimi matalan haddaan ku idhaaho galbeed galab buu ka yimi galab oo halka galabtu ka dhacdo ayuu ka yimi haddaad tidhaahdo waynu dhuumaalaysanaynaa ma kala hebel wuu luuntay
wuu dhuuntay markaad leedahay wuxuu ka yimi halkaas maxaa ku taala dhuun baa ku taala waxa laala wixii halkaa gala dib looba arko wuu dhuuntay markaa waa dhuuntay wuu dhuuntay baa leeyahay markaa waxaa la mid ah libdho qoraxda libdha la yidhaha haddii qola reer galbeed bariina la joogto reer barigu way u yaqaanaan libdho reer galbeedka fogee la waa lagu yidhaha libdho libdha la yidhaha libdhadu kolkay dhacday libdhadu markay soo waxaasi wuu libdhay markaa loo leeyahay sida qoraxdu u dhacay weeye caddaanku cadceed buu ka yimi cad waa cadceed buu ka yimi waayahay sinaan waxay ka timi labada sine halkaana sin baa ku taalla halkaana sin baa ku taalla sinaan marka laga hadlayo waxaad ka hadlaysaa sida labada sin u siman yihiin ayaa laga hadlaya cadaaladda sin labada sinay ka timi halkaa waa waxoogaa inoo wooma boolida siinaya wey waxoogaa woomaba yacni sinaan waxay ka timi labada sine oo isleeg si miisaaman isku leeg waxaasi waa sinaan baa laleeyahay sinaan waaya bahalka golxadka la yidhaaho saasaa gol horta goshuu xadaa waa ka lagu dooxa dadka lagu gowraco hebel golxuu leeyahay sida bahalkaas u qalooca wey golxo golxadkay ka timi golxadu waxa haddaa iminka caawa sii baadhaan waxaa idinka jira anigu de waxoo dhan idin dhexgeli horta waa bad halkaa haddaad gasho muraadilaac baaba ku dilaya waxaa ku jira war maxaad la habranaysaa baan ku leeyahay hebel miyaad u habranaysaa markaad leedahay maxaad u habartu horta waa hooyada nin walba habartiisu waa hooyadii habartaa dadka yani qofka markaad u habrato bini aadamka waxaa ugu casiisan hooyada oo qofka markaad qof u habra sida hooyadii baad ula dhaqmay markaad u nugulaato qofka aad ugu nugulaato sida hooyadaad ugu nugulaato waad u habra ha u habrani bal maxaad ugu habranaysaa baa lagu leeyahay maxaad sida hooyadii ugu dhaqmaysaa in iska celidii habrasho wata halkaa waxaa limayo ku jira wax badan baa ku jira halkaa oo yacni aad u badan ayaa ku jira haddaa baadhaan laakiinse qaar baa marka dambata isku dayaa wax dhag iyo dhag wax ka dhigo macnaa ka dila dhagax bay kulayaa baadha oo waa dhag iyo bay waxaas uma jirto epitomologiga kuma jirto waa inay wuxuu riisan leedahay oo dee wuxuu sabab aan dee raaraaceedu marka lagugu tilmaamo markiiba da ay ku muuqan karto erayadu way dhashaan weli waxaa ku jira welcome wababki afku waxa weeye waa living organism afku waa living organism waa wax nool waxa noolina wuu dhashaa wuu dhigtaa wuu gaboobaa wuu dhigtaa mar walba waxaa dhalanaya waxna way ka sii baxayaan oo way sii dhimanayaan waxna erayana way dhalanayaan not only erayadaa dhalanaya waxaa dhasha mahmaahaha ayaa dhinta qaar cusub baa soo gala waxaa dhasha oo dhinta waxa la yidhaha idiomiska ayaa dhasha afku waa living sidaa aynu u noolnahay buu u nool yahay uu yahay living organism oo dhalanaya oo dhimanaya tadawurka ilaa afku waa weelka lagu shubo culture-ka waxa weeye waa weelka culture-ka dhaqanka lagu shubo weeye culture-ku waa verbal iyo material culture marka as material culture develops verbal culture develops equally oo يعني waxaan imika mikrofoonkan aan ku hadlayo iyo diishkan aynu iska daawanayna iyo mobile kaliyo kuma jiro waa material culture develop garoobay oo aan awooyaashahayn inaga weyn ku kalifanayno magaalayo u baxno inagu awoogaas ugu baahnayno inaga u bixiyo mobile imika mobile bal dadkeena xagaasi koor baabay u bixiyeen koor oo waa lagu soo qabanaya meel kasta oo joogto sidii awrka lubay waa koortii bay koorteedii xumay hay ku lubtay koortiibka waxaa loo bixiyay mobileka waayo waxaa markaa luto lagu soo qabanaya sidii geela kow markaa koortii imika macno cusub oo aan awowgey u aqoon baan ku shubay anigu markaan hay cahdigeen leenahay koortii macno cusub baan ku shubay nin Martin Owen oo ninka bedelay Andrewski ee ka shaqeeyay ee jaamacadda London University ka ayaa markuu mobilkeyga gashanayo buug telefoonkiisa gaariga koor buu ku qoraa
وكورتي يا قارية قري أيوه كل قط والتلفون كقري جاي كورتا أيوه كل قط ما كان أرجع كور وحينو كشبلا أرجع كور وحن كشبا إلى الماتيريال كلتشر ديفلوب جرامي no longer كورتي جيل لقى هذا باي كور بلا بكحنا باي بكلا هذا يا أو sophisticated له أيها لقى هذا يا ما كان أفكي وينو لكره وين أريو معنا عصب حنبار سنة وين النشال وين النشال تدورك وين النشال markii idaacadu soo baxeen idaacadu ilo soo baxeen waxay u baahdeen concept cusub oo la yaba arkayeen oo ay la kulmayeen oo Soomaaliya ku jirin BBC markii loo warabaysay waxay u baahatay inay waves hirar baa laga sheekayay short wave iyo medium wave baa laga sheekayay markaas ay hirarka gaagaaban iyo hirarka dhexe hirku macna cusub uu qaatay material ka joogo ee waves laga hadlay ma aha imika hirkii badda ma aha no longer hirkii badda ma aha ee waxay leedahay erayadu afku wuxuu la koraya macna cusub bay qaatay oo dhalasho cusub bay qaateen waxay ka hadleen dayax-gacmeed bay ka hadlayeen oo satellites baa la soo kordhay ku jiray waxa dayax-gacmeed awowgaagii labaad ma yaqaano kuma jirin afkiisa dayax-gacmeed midabta koor kuma jirin because there was no midabta koor ma waa aragba apartheid wuxuu la yahay conceptka hanti wadaaga conceptka hanti goosiga conceptka barwaaqa sooranka conceptka gubaysiga waxaasi waa concepts afsidaa uu afku saasoo u dhalanaya oo u dhimanay wax cusubina soo galayaan wax cusubina waxna baxayaan madax banaani only 60 years by 40 years ago madax banaani waxay ahayd ila taala guursan baa loo jiray heblaaya ka waran miyay madax banaan tahay mise waa la qabaa markaas loo jiray ma way madax banaan tahay marka waa la guursan karaa bay ahayd now waxaa laga hadlayaa political independence bay ka hadlaysaa ila kama hadlaysaa imika concept yani tadawurku waa ka matii waa wixii baa isbedelay imika ilmadiina ila la sheedab oo ila keenay ilkaas ka mid yahay waxa isleeyahay madaxbanida wuxuu yaqaanaa yani independence buu isagu yaqaanaa independence no shalay Abdullahi inuu soo gaaray duu islabaya iyadoo ila tuula yiraahdo إذا كوسب هالكاسي تاجلاين مدح بلاني أو وحوف فهم يقول لنا على كورسين أيوه فهمي ساسو تدور يا أفكو وإحنا لا يا أودي مانيا كو الرياض وين الله يا ومالو بقار عصب بعد الله يا موبايل كلوا وحصب بك إديم جال هذا الشيء إديم سبار هذا الشيء هبل الموبايل بوقاتي هذا برعاكة تلاحظه ما عليه يبقى كذا ويسا أنا شلك وعليه يوي تلقي مسهل يا وي هذا بوقاتي أساسا وفهم هبلك يا والله مسكين أكيد موبايل كقاتي ما هبي كله كو ليش كهاي كذا قاتي بكله ليش كهاي كذا قاتي أنت شاهد كم كي شاهد كوس أوتو تار يلا كيف كم كهاي كي شاهد ليش كهاي كذا قاتي سلبي بكله ليش كهاي كذا قاتي ما كان شعاع مخيش ويا تاجر وقاد تلفزيون كيف شعاع خيش يعني مالو والبوح هذا هي كوسب تصعب أيا أو ماتيريال كلتشر waxaa koraya material culture waxay dhahaan material culture ku markuu kordhabana wuxuu u baahan yahay in la bad marka lagu leeyahay biyihii saliidii buu isku daray hebel biyihii saliidii buu isku daray waa concept cusub oo la socotay gawaaridu markay noo timi gaarigu markuu saliidii biyaha isku daro waa markuu duqeeyo dabeedna hebel biyihii saliidii isku daray wuu waashay ayuu isku daray magaraysaa conceptka uga ma aqoon إيديم كابو وقام ما أقول بك بيا يسريت على سكوت عليه مو أقول هم المرادي بيقول قتل العظيم كوريا وأنا أقول لك بريان مرادي بيقول قتل العظيم لا بحر الله هذا القف مرادي قتل العظيم اسمه قلب بيسان مرادي بيقول قتل العظيم كوريا هذا اللي مكهرجيسيا بروحاتك تالي على قابية ويا بيسان دي وحلقوا حظيه أفضل بالك عصبة لقوا حظيه يا تاسيك أولا كريمايا إن وكوريا ما قالوا شنو كلوا بيسان إنسان دي سؤال بس بدو ما حد يكلوا بيسان إنسان بكوريا أنا شيء ذاك كله بيسأل يقول أيوة كوريا سيدي بكاسات يعني ما هو البوحة وحو كوريا نكبورا بارغول طيب كوريا نكبورا بارغول طيب بركة ما كان لك هوس ويا كفتك ده ويا قارسو كفت له هوس كتور خالصة وكده نكبورا نقول طيب كوريا نكبورا صدق أقول طيب نكبورا ما كان بركة ما يحوي يبولي نعلوبل نكبورا كان كله فتاة كوما دل بارغول تلاقيه لكن بورا بقول في كوريا وافك هذا لو كيدي بكالو استعماله ايه عصب وحو كوريا ما واحد عيب على التيم كوريا ما واحد عيب واحد سباير يدوي واحد شكل يروح باطو
ayuu koonaya waa ku sidoo wax dhacay baad abti waa ismaayla waxay la socdaan afku ugu dhashaa waanu dhitaa waa wax koraya oo dhimanaya oo yaani markaasaa eeg waxa ii geeyay matalan shay gabal marba waxa loola jiray gabal alceeda gabal la yidhaahdo shalay bay ahayd gabal baa loo yaqaan ereyga gabal waxaa bedeshay qorax iyo cadceed baa bedeshay ereygu markuu dhimanay waa erey marka ereygu uu isticmaal badan waayo ee afka caadiga maalintii dadka afka suuqdiga lagu sheekaysanaya markuu ka baxo ee uu ku yaraado waxa la yiraahdaa ereygaas waa erey sii dhimanaya oo ka sii baxaya hawada ka sii baxaya ereygu wuxuu nool yahay marka uu yaani maalin walba la isticmaalaya ayuu nool yahay haddii se uu ku sii hadho meelo yar oo kooban uu lagu isticmaalo uu ka baxo nolosha inteedii kale lagu xisaabgareynaya matalan gabalka waxa uu leeyahay wuxuu imika u jiraa anigu waxaan maqlay oo u jiraa oo kaliya isagoo cadceeda gabalkii baa dhacay marka cadceeda iyadoo la baan laga hadli jiray gabalkii baa dhacay oo macnaheedu yahay cadceedii baa dhacday iyo gabalday ubax la yiraahdo gabalday waxa weeye qoraxdu eega kolba dhacay kaayto erayga gabal inay cadceed ahayd baa ku soo baxaysa waxaan u sii jiraa foomkaas oo kaliya gaal been loo jiray wali dhul baa laga yiraahdaa gaal jacab hadad koof dhul oromo wala bida gaal bay u taqaana inagu geel been u baxnay laakiin se gaal baa looga yaqaan dhulka kale oo marka oromada lagteena looga yaqaan af Soomaaligeena gaal wali waxa uu jaxay gaal iyo haluub gaal iyo ceel gaal ayuu sii jiraa wali kalmadahaas ku sii dhex jira inaynu geel u dhaqaanay gaal u dhaqaanay laakiin se oromada waa ay nool gaal sideed baa loo isticmaalaa inaga tadawuray oo geel ku sii socda erayadu way dhashaan waana dhitaan مثلا waxa kamida fall waji wadaadada ay laga bedelay culimadii loo tibiyay diinta markii masxul waji markii kitaabku keenay masxul waji ayaa fallku waji buuha laakiin imika wuxuu u jiraa dhowr kalmadood buu ku jiraa oo kaliya ayuu hebel fall baa iskaga horreeyay fall wali way jirtaa waxa kale oo jirtaa fall dhaqo ayaa lagu leeyahay waji dhaqo lagu bale fall dhaqo ayaa lagu leeyahay waxa lagu leeyahay uu fall xu yahay hebel uu fall xu yahay marka waa erayga fall baa wajiga loo oran jiray shalay fallkii ustaadka ka helay fayda iyo khayr waxa Soomaalidu ku baabada fal kaliya fall ma dhaqdo waji ma dhaqdo intaasoo mid kale helay bibisid si kale waa intaasoo form intaas sabab su'aal ugu jawab marka fall waa eray dhintay baynu leeyahay waa erayada dhintay baynu leeyahay hadda ka soo noqdo erayadii aad lahaa epistemology-ga kamid baa xasuustay interesting ah badaal bay markaad badda ku jirto to swim waxa weeye waa badaal weeye waa badaalanaya inagu waynu dabaalayna baynu dhahnaa soo maaha horta erayga asalkiisu waa badaal weeye wali haddaad ciisaha dhulkooda tagtaan oo aad jabuutiba gaadho waan badaalanayaa baa lagu isticmaalaa waxaynu naqaanaa af yaroo jilicsan iyagaa orijinaalkii ah baddii baan gelayaa weeye waan badaalanayaa buu kolaya ninka reer jabuuti waa rartiisa maxaa ku dhacay afka innaga maxaa inagu dhacay innagu waxaynu leenahay waan dabaalanayaa waxaa laga hadlayaa markaa wax la yidhaaho consonantal shift baa laga hadlayaa qoladiina linguistics-ka macallimiinta afka dhigaysaay waxaa jira wax af Soomaaliga lagu yiraahdo afka linguistics-ka lagu yiraahdo consonantal shift consonant waa shibanihi oo dhaqaaqay consonantal shift baa la yiraahdaa shibanaha ayaa dhaqaaqa oo ka dhaqaaqa halkiisa oo meel kala taga erayada Soomaali isagoo oo aan macnaha bedelin waxa kamida suxul iyo xusul waxa kamida dawaco iyo dacawo waxa kamida shabcaan iyo shacbaan markaad ka hadlayso waxa ka jira gacmo iyo gamco ayaad ka hadlaysaa mid walba waxa shibanayaasha ku jira isweydaanaya sidaas oo kale badaal iyo dabaal kale
badaal iyo dabaal labadaas bay kala yihiin waa consonantal shift baa ku dhacay laakiin asalku wuxuu ahaa badaal buu ahaa anyway intaa waxaan idinka dhigay warm up inkastoo cilmi sideeda iyaduba cilmi tahay waa warm up waayahay waxaad ku soo noqotaa waxay qoladeedii weydiisatay haddaba hodantinimada af soomaaliga alla hodansanaa indisanad ku hodansanaa bii'adiisa markaa le waa hodan afku wuxuu hodan ku yahay culturekiisa ayuu hodan ku yahay kuma hodan ahaa waxyaala Finland waxa ku aragtaan kuma hodan ahaa wuu ku soo gaabanaya waayo material culturekiisii maaha tan maaha waa tahay suugaanta ereyga la yidhaaha suugaanta ereyga suugaan waa erey ku jira afka soomaaliga uguna jira horta afka ay hodantinimadiisa ay weydiiyayaan suugaan gulubna afka ay weydiiyeen afka maalinta ay nala joogeen Stockholm waxaan kala hadlay waana ta soo jiidatay istaan balaad uga sii hadlo soo jiidatay afku guud ahaan afku bini'aadamka afka marka laga hadlayo afku waa nimco ka mid ah nimcada Ilaahay bixiyo way afka waxa lagu dhahaa wuxuu ka mid yahay nimcada Ilaahay bixiyo ee siiyo beel bashar oo siiyo way ma Soomaalidu kaliya waa nimco Ilaahay siiyay beel bashar dadka ayuu Ilaahay siiyay waa nimco Ilaahay kaga soocay dadka saayir al makhluuqaat baa laga soocay waxa laala waxa Ilaahay abuuray wuxuu kaga soocay in bini aadamku hadlo ayuu kaga soocay waxa kaliya awoodda uu leeyahay Ilaahay waxa abuuray bini aadamka ayaa hadal u leh waana qayb yar oo kamida waxa Ilaahay abuuray badiisa iyo barigiisa iyo hawadiisa wuxuu ku abuuray ee aad garan karaysaan bini aadamka oo kaliya ayaa hadla Ilaahay markaa waa nimco uu iyaga siiyay bini aadamka oo ugu mana sheeganaya isla markaa nimco uu iyaga siiyay haddii bini aadamka yihiin ugu mana sheeganaya way Ilaahay marka uu la hadlayay jinka iyo insiga ee uu leeyahay fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhiban Ilaahay uu leeyahay ee uu leeyahay maxaa ku beeninaysaa nimcada jinka iyo insiga maxaa ku beeninaysaa nimcada Ilaahay alaaga Ilaahay waa nimcadiisa way nimcadiisa maxaa ku beeninaysaa kolka Ilaahay leeyahay ee uu ku soo noqonayo suuratu raxmaan marka la akhriyo ay ku soo celcelinayo marka ugu horeysa nimcada uu ka sheekaynayo ee uu leeyahay jinkiga isiga uu hadda firida waxa ugu horeysa nimcatul kalaam baa ugu horeysa الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلهي رحمد وشاغليه waxa ugu qiimo badan oo ku bilaabayaba Ilaahay inuu dadka abuuray dabeeraha kama hadlayo bisadaha kama hadlayo Ilaahay halka dad insaan buu ka hadlaya khalaqa al-insaan allamahu al-bayan isaga intuu Ilaahay dadka abuuray buu ila hadlana inay wax isu bayaamiyaan bayaan waa isu bayaaminta way waxa wax la isugu aalada wax la isugu bayaamiyo way kalaamku Ilaahay dadka wuxuu baray oo raxmadiisa kamida inuu baray wada hadalka inuu baray waa nimcada Ilaahay uu leeyahay maxaa ku dafraysa yaani nimca la inagu xisaabtamayo weeye waxa nimcad iskaba sheekayno imiko yaani odayaro gabayo way daaliban waxa inagu sugu nimi inaynu ka wada hadalno qiimaha ay leedahay nimca kamida nimcooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay bini'aadamka siiyo ee ugu mana sheegalay isla markaana subhanahu wa ta'ala ugu mana sheegalay وعلم آدم الأسماء كلها
وعلم آدم الأسماء كلها بإلهي آيات كالكورية إلهي ويبحو بري آدم لغات كورنا ببري أفف كورنا ببري بما فيها لغة الصومالية معلومة لينيات هذو بري أو بري دها وإلهي ده وحنا نقول إنه بري يوم إيه مركز لقى هذا يو مركز لقى هذا يو اللغة بين آدم بالغ هذا يو كلية آدم بالغ هذا دميرها لقى هذا باي مركز وكخرج يعني يبدأ يو بري يقولون بوهلية مركز لقى هذا يو كو afka qaylkaasi waa waxa inaga soo ah xayawaanka intiisa kale inaga soo ah ee inaga dhigay bashar inuu dadlay waa sababta uu inoo fuulay risaaladu inoo furtay risaaladuhu risaalatu samaawiya maxaa la inoogu soo diray ee dabeeraha iyo bisaaska iyo ariga loogu diri waayay laanna la takalam waxba waynu hadalnaa risaaladana wax fariintana waxa la inoogu soo gudbiyay oo hadalba la inoogu soo gudbiyay عندي هذا القرار يسمى لو قد بكريا عند كلام وحي كلام لو ما قد بكره أو فرل يسونا مثل لا بصاريه كو أفكو وواحد بلاب وواحد كلي ثقة كالتشريسكا كالتشاتكا وواحد كلي سيفلايزيشنكا هذا ركتين حضاراتك وحلقوا أبو هذاك يعني سويدار سجا إنه سويدار سنة إنه أفكارته إنه طلال إنه كيدر أيا كليسا ستراكمية ayay dabad u abuurmaysaa xadaaradu u abuurmaan oo beermaan afka abuura hadaan af jirin xadaaradii ma jirto loo civilization loo religionism ma jiro laga xadaaradii albaxnimo kama hadli kartid adoo afka hadlay kama hadli kartid go alisanu xayawaanu naatiq wa go waxa isku xidhan nudqiga iyo fikirka waa tuulka lagu fikiro afku waa maxay waa tuulka lagu fikiro weey يعني كوا هذا الله وايو إمك هذا السهل فكر عدوه واحد فكره يساون أنت رأي تقال بل اسكت يا عدوه بكيات فكر تتي هذا السهل فكر خلت بلا آدم كل ما يهون فرديا يدوبر يهون فرديا لا بدي يدوبر بلا آدم مركا وصوت وصايو هذا البلابة إلى يتصيح عليه والله يسلم ما شرتو وسكر لروش على كبيرو الصوت يدو على هالليدي ما شرتو ولا وايدتها because فكر وايو you are either thinking loudly or thinking silently أما هو إمك I am thinking loudly أرجو إمك I am thinking loudly وهذا يا وهي بالبركو يصلح الله يو وهالكلام اللي جماعة سهلة يعني ولي حياة ولي يعني وحوليها بالوي يصلح الله قالوا هو ينقل حساب وعي لهال he is thinking loudly لكن ساعدوكم والله يساعي يا سبحان الله هيني والله وذاك مغرين إمك إتر أين وذا فدينه أنا أقول كليا I'm thinking loudly but you are all thinking silently حتى واحد كيف كذا يسأل وذاك قابلها ما قارس لي وذاك قال ما هو صاير كذا وذاك waxaa la yiraahdaa bini aadamku mar allaale markaa uu soo tooso ayuu bilaabaa inuu hadlo hadda ilaa iyo intaad ka seexanaysa waa hadlaysaa waa mashiin siraadan mar allaale markaa toostaa buu bilaabaya markaa seexatana u galabaanaya marna hoos baad u hadlaysaa marna kor baad u hadlaysaa sababtoo ah waxay la macno tahay hadalku markaan kule waa hadlaysaa مرأة الفكر بس كحالة كم غير مش هذا يمكن لقى بحضر كهاي تكتو أنت عارفين كهاي سوى خلينا تروح عليه يركي يلا مرة بقى تروح كي يلا يسكون كي بتجي صلاة دي إلهي بعد الفكر هذا إلهي سيداك هو هذا سيدا باي قال وخلونا تروح بالدولة دي بتجي قال هي فوسرا يبان تروح تطال واحد ليس أنت واحد ليس ما حد فوق هذا ليس واحد فكر بواحد فكر ليس فكر كده واحد يكون فكر ليس أريوه واحد فكر كي أرياد أفكيو يفكر كي بس كبر دقطي بلا يكون فكر بعد اللي انت اريو يقان because هو قلب كلو فكره في هذا وقلب كلو فكره بلا يكون عاقل يحي لانه يتكلم الانسان حيوان ناطق عاقل ويسلو سعوتا الانسان انسان حيوان انت هذا بير هذا ودكته يا بساسك يا جيلتي حيوان كو لكن سناطق وخليات كتكيسه نطقي بقى وحو كينيا عاقل عقلي الى نطقي بقى وحا كخدن
قلب كي لغو فكري وي نطقي ايساكو حنا وادي يمكن انت فكري سوا هدليسا وقلب كي لغو فكري وايا وحو انت ويري وحا يعني انه قلبكي waxaad ku garanaysaa geela bal u fiirso geela ya ariga vocabulary waa maxay waa zero vocabulary the language bale therefore ما فكران دي هل فكر سدارك بيسد الناقة لا تفكر وايو زيرو فاكبولاري بالله زيرو فاكبولاري الذخيرة اللغوية ما أنا أقولها الذخيرة اللغوية ذخيرة دي بقى جاية زيرو صفر على شماله كو المهاير مركا ويري وكوريو انت وكوريو لو waxaan wuxuu urusada vocabulary buu urusada uu yar yahay inta uu dhageysanaya agaha bidbidbidbida ka siinayso hamoodii lu iska jiifo wuxuu duubaya bowda bahalka lagu jira duubaya softwarekiisii buu ka shalaya maskaxda ayuu degelaya uu duubaya marka uu ugu horeyso hadalka barto waa marka uu garaadsaday been dhahnaa ilmihii yaraa wuxuu garaadsadaa markuu helo eraya ku filan uu ku fakiro ayuu ilmuhu si kale uma garaadsado waa marka uu helo eraya uu ku filan uu ku fakiro markaas maasoo berigaas dirqiibaan ku sii galanaya iyadoo laga guurayo meesha halkaasoo islaantii xadiyo markii ayuu qoonaya waa marka erayada ugu horeysay uu helay malaa 200 kalmadood uu ku fiilay waa qalabkii fikraadda markaas ugu horeysa inuu keeno inuu garto inuu wax garto marka waxa isku xidhan waa aaladii fikirka weey waa aaladii fikirka soo gala daba suugaantii waxaan waa badoo laga dhamaanayay aan soo yar koobo waxa timaada suugaanta oo kamida qaybta ugu sareysa waa qaybta ugu sareysa waxa ugu sareysa afka caynkaasa ee qiimaha leh ayuu yahay waxa ugu sii qiimaha badan bay suugaantu tahay waxa ugu sii qiimaha badan halka ugu sareysa ay weeyay suugaantu weeyay waayahay suugaan waa eray afka Soomaaliga ku jira ilaa iyo imka lagu ku jira qoladii leeyahay dambe suugaan waxa uu taqaanaan literature waa tahay literature way tahay af carabiga waxa lagu yiraahdaa adab waxaan ku jiray guddiga af Soomaaliga ee magaca u bixis saas uu daayiriyay eragaas macnaha markuu leeyahay anu guddigaas ka mid ahaa markii loo bixinayay suugaan waa tahay suugaan laakiin af Soomaaliga uguma horeyso suugaan af Soomaaliga wali way ku jirtaa miyigiina macnay ku leedahay ogow miyigiina macnay ku leedahay ogow erayga suugaani walla way ku macnahan ay tahay terminology-ga ee mustalaxa ah ee looga jeedo suugaan literature looga jeedo waxay qaadatay 1927 bay qaadatay intii ka horeysay ma ilahayn macnaha waxay lahayd af Soomaaliga ku jirtay walla way ku jirtaa gobolada kala jaadka ah wali waxay ku leedahay macnayaal kala jaadada ee suugaan gobolada qaar waxa looga yaqaanaa marka roobku da'o ee dhul abaara uu ku da'o ugbaadka waxa la yiraahdaa dooga ugu horeeya ee ka soo baxa dhulka ayaa la yiraahdaa suugaano meel heblaayo xogaa suugaana bay leedahay kuleeyay halkaas Soomaaliya xogaa suugaana bay lahayd oo looga jeedo ugbaadka ugu horeeya ee soo fufa marka roobku da'o kadib dhul abaara waliba uu ku soo fufo ayaa la yiraahdaa suugaan dadka qaar suugaan waxay u yaqaanaan marka roobku da'o dabaysha dhabata ee qayoodka ah ee dhabata ayay u yaqaanaan ee saxada loo yiraahdo ee udgoon bay u yaqaanaan suugaan ayay u yaqaanaan dadka qaar waxay u yaqaanaan haruurka marka la tumo ee la geliyo bahasha la yiraahdo shaqshaqda ama la yiraahdo shaandada la geliyo inta budada ah ka dhacda ee daxiinka ah ee haruurka ee looxda laga samaysto ayaa loo yaqaanaa suugaantaas loo yaqaan ala kulli xaal imika erayga suugaankaas waa barigi aanu caruurta ayle fiqiga loo ligi jiray ayaa waxa loo jiray ad-dahaaratu lughatan wa shar'an baa loo jiray
luqatan afka waxbay ku tahay marka luqada laga hadlayo sharcana waa waxay tahay oo marna waa technical term cilmiya marna waa luqada waxay ka tahay luqada waxay ka tahay hanuun la ridqay sharcana suugaani waxa weeye literature horta suugaani waa literature waxaana u qaybsataa tixiyo tiraab ayuu qaybsataa miyaa kala hadlaa bahalihii waayahay tixiyo tiraab sida ay u jirto tixiyo tiraabtu tixiyo tiraab itaalan bahurta gelin afkeenu wuxuu ka mid yahay afafka oralka ah higaada waxaan ugu jeedaa xaraf ereyaa waxaa jira isku xaraf ku bilaabma afkeenu mar haddaanu qorayn oo intuu qorayayba 30 sannadood aanay ka badnayn sugaantiisu waa sugaanafeed horta inuu saa u fahamno weeye waa sugaanafeed waxaan uga jeedaa oral literature weeye sugaanafeeduna ma qora haddaanay qorayna xusuusteeda adag waxyaabaha caawiyay in wax lagu la xasuusto waxaa ka mid ah erayo isku mid ah ayay ku bilaabataa xarfo isku mid ah مثلا imika tixiya tiraab baa leeyahay tixiya tiraab waa laba erayo labaduba taabay ka bilaabmaan marka aad doonayso inaad Soomaalidu waxay isticmaali jirtay weligeedba erayo sidaas oo kala lamaana ah oo wixii ay doonayso inay xusuusnaato dooc iyo dareen raq iyo ruux kafar iyo kawl war iyo wacaal ab iyo isir ilaahay bay waxbay saa isu daba dhigaan joog iyo jiif waxay isticmaalaan erayo isku xaraf lamaanayaal baa lagu waqaan lamaanayaal xaraf raac leh ayay isticmaalaan maxay u isticmaalayaan waxay u isticmaalayeen una isticmaalaan because waa sugaanafeed waa in maskaxda lagu qabto wax qoran maaha marka waxay u yeelaan xarafyo isku mid ah xaraf raac inay raacsamayso alliteration baa fikrista lagu dhahaa alliteration xaraf raac bay leedahay marka dooc iyo dareen baa lagu leeyahay waa tahay kow waxaa loo leeyahay matalan waxaad oranaysaa hilibka marka la qaybiyo hilibka neefka marka la qalo horta haraggaa laga saaraa haragga markaad neefka haragga ka saarto waxaa soo haray intii kaloo neefa dadka dee hadiye samaysanaya ducadii arooska markaa neefkii wuxuu u qaybsamay markaa so iyo saan buu u qaybsamaa so iyo saan waa labaa leg waa siin baa la raacaya markaa si loo xasuusnaado so iyo saan buu u qaybsamaa neefka oo dhammi hilibkiisu haddii saa qaybiya haddii aad saanta halkaa dhigto oo aad soo qaadato inta weyne isku fadhida waxay u qaybsataa laf iyo lud horta asharkeedu laf iyo lud bay u qaybsataa oo waa lafaha iyo hilibka ludda waxa la waa hilibka oo dhan baa la isku dhahaa laf lud neefki markaa waa laabley baad ku qaybsamaysaa intii soo hadhayso iyo saal markaad u qaybisay laf iyo lud bay u qaybsamaysaa lafaha markaad ka saarto inta soo hadhaa jiid iyo jibaad bay u qaybsamaysaa jiid iyo jibaad bay u qaybsamaysaa jibaad waa baruurta jiid iyo jibaad hilibku waxaa la isticmaalayaa si loo xasuusnaado xarfo isku mid ah oo lamaanayaala baa la isticmaalayaa eeg maxkamadaha Soomaalidu geedka markay joogto gartay qaadaan garta kolkay qaadayaan waxay leeyihiin erayo legal terms baa jira ila waxa wayna qabsadeen waxay laga baabiyeen waxay walada way sii jiraan legal termski wali way jiraan geedka hoostiisii sababta korban ku lahayd magaalada xaafadeena ku lahayd gurigeena ku geedka hoostiisa waa lagu shirayay wata lagu shirayay kaba Soomaaliyeed wata ku shiraysay deedo baarlamaanka ku dooranaysa ila geedka hoostiisa baa lagu soo labaystay ay ku soo labaysteen dadku halka joogay waa geedku waa halkii Soomaalidu wuxuu dhalatay macna ku lahayd qoladeena Soomaaliyeed xamar joogta waxa waa in bagaati ka kale oo dhirtii kale hadii dhirtii yimaadaan waxbay gooyn lahaayeen talay gaari lahaayeen geedka hoostiisa wax badan baa ku jira eeg legal terms bay lahaayeen legal terms ka waxa loo leeyahay geedka la imanaya waxa loo leeyahay geedka subaxdii marka xeerbeegti baa fadhida xeerbeegti waa technical term xeerbeegti waa odayaasha hebel baa ku jira xeerbeegtu waa rag
محنكين أو ضدك كتير أو ضياجة بشعة أو الذي ما بعده أو تجربة داري observation لو صح ولا هبل لو جاي على الريا هبل هذا شو قلت أسوي قالتها حربكتي حرك ورجع حرك بيجا استروا قياس ده حربكتي وحين كومنت لا بيري ورجع حرك قياسه بيج كل بيج حربك واضح حربكتي قالوا تجيا وحاولوا يعني يا دبابة السرية يا دبابة السرية أرجع دب لقى حل باي مركها مركها محكمة تبادل دبابة يدخليسها تقريبا تربيس بدليسها دبابة يا الله يا قالوا مخاسر دباك عيوخ يا لقى دبابة السرية ما حات السرية باللي وحو هرت الديدف مركها وحو شيء وحو لبتي سو شغالية يا كوما رجع هبل هبل وديدف هبل باك عيو وحو ديدف يا هبل هبل والله وحال الديدف فيبا وحال بالك وحال الديدف هو تكنيكال تيرم وي وحال الديدف يا عند markhaatiga uu soo hebel soo taagay baad horta oranaysaa iima garaarigo hooyadii buu bari qabi jiray baad oranaysaa markaas laga saaraya maxkamadda waa deedefo markaas laga saaraya gartii waa deedefeyn baa la yiraahdaa markaa waa la deedefeey waaya markaa erkaas noqo ayaa loo leeyahay maxaa gartii baa waxaad sheeganaysaa dhibaabaad sheeganaysaa ma dhur baa mise waa dhaqan baa loo leeyahay dhur iyo dhaqan labadaas kiisoo nabi waa labada dhur ama dhaqan waa dhacday ila dadku waa in ila legal terms waa in la xafido ila maxkamad baa meeshii taale markiiba click waxay taabanaysaa biboligi click baa taaba dhur iyo dhaqan baa soo baxaya marka ugu horeysa kiis allaala kiis Soomaali isku soo marto geedka yimaada labadaas uu qaybsamay una qaybsamay ilaa hadda waxa weeye waa wax dhiig ku saabsan dhiig ama dhaqan dhaqamaati nolosha kale ku saabsan kiisoo nabi waa labada ama dhiig buu ku saabsan yahay ama dhaqamaati buu ku saabsan yahay ama waa dhur ama waa dhaqan waxa la oranayaa kiiskaygu waa dhur baad leedahay dhur baad oranaysaa dhur marka leedahay waxaad uga jeedaa waa dhiig waxa lagu oranayaa hadduu dhur yahay ma qudba bisa waa qud iyo qoon buu kala baxaya markaa qud iyo qoon waa kiisoo nabi waa labadaas suul hadduu dhiig yahay ama qud baa baxday oo naf baa dhibatay ama qoon weeye waa nabar mid saddexaad ma jiro waa waa intaas labadaas mid waaya ama wuxuu noqonayaa qud ama wuxuu noqonayaa qoon buu noqonayaa labadaas mid noqonaya waa yahay qud iyo qoon ayuu qaybsamayaa ama naf baa baxday ama waa qoon waaya haddii uu yahay dhaqmaatil hadduu yahay kiisku labuu markaana u kala baxayaa laba ayuu kala baxayaa waxaa loo leeyaa ma xilaa bise waa xoolo kiiskii waa xaalay markaa kiiskii xaadii baa la baalayaa dhaqmaatilkii labadaas u kala baxaya xila iyo xoolo u kala saaraya kiiska dhaqmaatiku waaba labadaa mid saddexaad ma jiro ama waxaa la isku haystaa naag dumarku halaha iska hadleen xilo iyo xoolo baa laga hadli jiray maxaa looga jeedaa xilo iyo xoolo naag kiiska xiluhu naag baa la dilay ama waa la furayaa ama waa la dubaalayaa ama waa la kufsaday ama kiiska dumarku wax ka badan kiiska dumarku ama waa la caayay oo xaal bay leedahay waxbay leedahay ama naaywkiibay taabatay qoladii xaggii maxaa leela barka idii taabtaan watuga idii taabanaya ama watuga kiiska dumarku waxaa leeyaha ma xilaa mise waa xoolo labadaas horta kiisoo dhan buu qaybsamaa waa kiiska dumarku waayahay haddii kale waxaa la isku haystaa xoola un dhaqmaati kale ma jiro xoolaa la isku haystaa xoolii baa loo leeyahaa waa xoolo ma barbaa mise waa beer ma barbaa mise waa beer baa loo leeyaha bartu waa baxay waa bar xoolaad weeye bartu waa barba xoolaad ama waa beerun lacagtaleedii waxaan ma jirin salaadii baa loo baxayaa wala xadiisi baqiya ummad waxaa astaan u ah ummad waxaa aqoon u ah
ummad waxaa u aaya ah ereygii arabtii afka hooyo weeyaan arliyada horuu maray barashada afkooday ku baxshaan adduuno siday aadamaha kale u fahmaan darteed bay u huraan dhaqaaliya hanti aad u fara badan ummadeenna Soomaal ka aradan midkoodii ma adeegsadaan oo badi waa ilaaween waa maxay inkaartan nin inkiray afkiisii afkalaad ka doorbiday ma aqoonta maanta ma itaal weyn baa ma asaago dhaafo yaani managtaada isoo arrimo kale nin ambalisidiisii agmarayo hoygii asalkii awowgii dhaxalkii aabihi sawtii abwaayidi ee bahay hal dhowray afkalaad aqooniyo ereg ku bedeli kara maaha kii abkeennay ereg iyo ammaaniye amaah laguma oombaxo Soomaaliya ogsoonow afka baro bilowgoo isticmaal dhigaalko ku ilaasha qaninko ku arrimiye kiino ku abaabsho ubadko ku ekeeyo dunida ku abraansha talado ku ansixiyo shaqado ku asariyo magaco ku urusho xogo ku akhriyo bugaagtii